mudaharaad ballaaran ayaa maanta ka dhacay magaalada Burco ee xarunta gobolka Togdheer. mudaharaadkaasi oo lagaga soo horjeeday xadhigii habeennimadii xalay lagula kacay isla markaasina lagu xidhxidhay uqaasha iyo odayaasha beesha Cabdullaahi Arab ee gobolka Togdheer. mudaharaadkan oo ka soo bilaabmay xarunta maamulka gobolka Togdheer ayaa waxay dadkii mudaharaadayay ay adeegsanayeen gubitaanka taayiro iyo dhagxaan. dadkan ayaa waxay isugu soo biyashubtaan xarunta dawladda hoose ee degmada Burco waxaanay ka dhigteen bartilmaameed ay halkaasi ku gudbisan karaan dareenkooda. ciidanka booliiska gobolka Togdheer oo isku dayay inay kala kaxeeyaan dadkani mudaharaadayay ayaa waxa halkaasi ka soo gaadhay ciidanka booliiska dhaawacyo ay sababeen dhagxaanta ay ku tuurayeen dadka mudaharaadaya. xubno ka mid ah dadka mudaharaadayeen halkaasi kula kulanay ayaa waxay ka hadleen dareenkooda ku aadan xadhigga loo geystay cuqaashani waxaanay sheegeen inuu ahaa xadhig cadaalad darro isla markaasina aanay marnaba yeelaynin waxaana hadaladooda ka mid ahaa كان يوم دولة السياسية كده صدق عدالة درا عدالة وش شغل عدالة وش شغل دولة السياسية هن تذكر مظاهرات كوالله كسبتي دولة الدنيا كسبتي دولة دي كودين تاني حدي دول كودا وقول تكتي أي ولي مسؤولية دي سرية قبلكم بس كلا صبح حنتم مركي المظاهرات دي ماشي أي هل كي أجعنت يجوا عادي كو قبل هاي ولا هاين waxan waa wax aynu gacanteena ku jiro aan dhameeyno markaas dawladdu lafteeda ayada doonayso mudaharaadka waxaan leenahay dawladdu iyada ka gaabisay mas'uuliyadda ay ku leedahay gobolka Togdheer. mudaharaadkan oo soconaya muddo saacada ayaa waxaan wax ka weydiinay sida uu dhacay waxyaalaha sababay gudoomiyaha gobolka Togdheer Maxamed Muuse Diiri iyo xildhibaan nacnac oo hogaaminayay wafdi ayaamihii ugu dambeeyayba ku sugnaa magaalada Burco ee xarunta gobolka Togdheer isla markaasina ay ujeedadoodu ahayd xalinta shaqaaqada ka taagan deegaanka Balliga Diiriye Guuleed oo ay aad u bariyeen oo ula hadleen runtii hase yeeshee may qaadan marka xalay waxa la xiray ilaa xogaa tobaneeyo oday dadka mudaharaadaya waxay ahaan ehelkii odayadaas markii markii u horeysay halkan gobolka yimaadeen tiradooda idinba waa ogti oo idin sheegi maayo way ka tageen oo halka dawladda hoose tageen iyada oo Burco halka ooda ah oo aanay Burco dabageli maanta koowa waa ogtiin dumarkii caruurtii halka ka soo noqday hadana ilaa jeelka inay tageen oo tiradii aan badnayn oo ehelkii odayaasha la xidhay bay haayeen markay dhacday wax weyn dadkii hadal bay ka keeneen gartu ku dhacday marka madaxweynaha u tagnay annaka waxaan loo soo diray warbal nimankii gartu ku dhacday way cabanayaan in ma ku keenay hay ii keenay wiil marka wax weyn annaka wax kale ma iman inaan qor qaadno ma iman bay madaxweynaha la hadlaan oo ay garta waxay ka cabanayaan u sheegaan taasna way odayaashii uu qoobsan weeday gacmo kala soo galay hadalla bilaamcina baa soo galay wuxuu maanoo ku ilaa afarta habeen meesha u joogay waar kaale gartiina sheegta hadda gar leedin kaale gartiina sheegta marka saasaan u dhimay si kastaba ha mudaharaadkani ka dhacay maanta magaalada Burco ayaa waxa uu ka dambeeyay kadib markii habeennimadii xalay la xidhiidhay cuqaasha iyo waxgaradka beesha Cabdullaahi Arab oo beesha degta deegaanka Balliga Diiriye Guuleed isla markaasina muddooyinkii ugu dambeeyay halkaas ay shaqaaqa ka taagneed. waa Khalid Bakeele shabakada caalamiga ee Itraaf News Burco.